بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. صار لسعتان waxaana soo gaaray dalab saan idinkugu sheegayba horudhicii hore kaasoo ka hadlahayay in dadweynaha gobolka mid ah ay naga dalbadeen inaan samayno barnaamij kaasoo looga hadlahayo qisooyinkii dadkii wanwanaagsanaa annagana aan ka oggolaanay. tii ayaan rabnaa inaan bilowno barnaamijkii noocaas ahaa. maalin khamiisa ayaannu maraynaa 15 Oktoobar 2020 waan ku jirnaa, waana 28 bishii labaad ama safar 1442. xaafadda saan horodhaca ugu sheegayba waa Juujaa. maalintu waa maalin khamiis ah. saacadda aanu maraynana waa 6:20 daqiiqo aroornimo ah. salaada subax kadib waxaanu ku dhex jirnaa madarasada lagu magacaabo madarasatul axlaam. waxaanu ka bilaabaynaa gabadhii saalixadda ahayd ee dadkii wanwanaagsanaa ka mid ahayd waa mucaadatu bintu cabdillaahi ummu sahbaa alcadawiya. sayidad caalimad ah ayay ahayd ee reer basriye ah, gabar caabidad ah, fiqiga diintana aad ugu dheer way ahayd mucaadata. ilaahay ha ka raalli noqdee. zaahidad bay ahayd, adduunka ka zaahiday. hamigeeda ugu sarreeya waxa uu ahaa inay diinta islaamka barato, ummadda ay gaarsiiso. waxayna ka mid ahayd dadka farakutiriska ah ee cibaadada badan ee basra markaa ku noolaa. basra ayay markaa ku noolayd. waxaa qabay ama guursaday nin ka mid ah xagga cibaadada ayadana aan ka gaabinin oo taabici ahaa, ku dayasho mudan, silata binil-ashyama lagu magacaabo. mtaqaanaa waxay ku barbaartay baa la yidhi oo ay ku dhex kortay saxaaba dhexdooda. saxaabadii karaamada badnayd way la kulantay. waxay ka cabtay oo ay qaadatay macnaha ilmaciin ah cilmigii saxaabada ay markaa lahaayeen. ilaahay ha u naxariistee waxay ardayad u ahayd nasiib wanaaggeeda caaishata radia allaahu tacaala canha. caaisha oo mu'miniinta hooyo u markaa u ahayd. mucaad alcadawiyi gabadha lagu magacaabo, mar allaala marka maalintii la gaaro waxay odhan jirtay haadaa yowmii, kani waa maalintaydii, waa maalintii aan ku dhex dhiman lahaa, waa maalintii aan geeriyoon lahaa. sidaa ayay lahayd gabadhu. waa maalin walba oo qoraxi baxdo. da'bigeeda saasuu ahaa, caadadeeda saasuu markaa ahaa. waxay ahayd gabar aad iyo aad u cibaado badan. waxay ahayd gabar khayrkii wanaagga aad ugu dadaasha. mar allaala marka la gaaro oo ay galabaysato oo habeenkii uu soo galo, sidoo kale waxay dhihi jirtay haadihi laylatii, tani waa habeenkaygii. habeenkii aan ku dhex dhiman lahaa ayaa maanta hadda la gaaray. ma seexan jirin ilaa ay ka waabariisato mucaada. mar allaala marka qabow fara badan uu jiro waxay labisan jirtay baa la yidhi dhar aad iyo aad u khafiif ah. waa marka ay gurigeeda ku dhex jirtee waxay labisan jirtay dharkaa rakhiiqa ah ama raqaaqda ahee aad u jilicsan, si qabowga uusan uga mancinin hurdada xaggeeda. mucaada waxay ahaan jirtay mid labisata dhar khafiif ah. waa markay gurigeeda ku dhex jirto xilliga qaboobaha ah. markuu qabowgu jiro dadku jaakatiin iyo dhar adag bay xirtaan.
markuu kulaylku jirana dhar khafiif ah ayay xirtaan ayadoo cagsi bay ahayd. mar allaala marka qabow jiro oo xagaage ay markaa tahay waxay labisan jirtay dhar khafiif ah si uusan uga mancinin qabowga. xataa yamnacaha albaradu, ilaa qabowga uusan u diidin inay hurdo aado. macnaha si ugu diido inay hurdo aado, hadhowna ay cibaadadii iyo diintii iyo waxay qaban jirtay ay markaa ka seexato. gabar u shaqayn jirtay Mucaada waxay tiri, kaanad tuxyi lleyl, habeenkii way noolayn jirtay, salaad ayay ku noolayn jirtay, way istaagi jirtay Mucaada. haddii hurdo ay ka qaalib noqoto oo ay gamaanyo qabato way istaagaysay, waxay ku warwareegaysay guriga dhexdiisa. waxay dhihi jirtay, nafeey hurdo way kaa horaysaa, nafeey hurdo hordaaday jirtaa. haddaad hormarsato oo ilaahay mataqaana haddii aad hormarsato hadda oo hurdadii gadaal jirtay aad hadda hormarsato, waxaad kala kulmi doontaa qabriga dhexdiisa xasre iyo shallaay ayaad kala kulmi doontaa. haddiise aad dib u dhigato oo maanta aad wanaagsanaato nafeey, oo khayrka iyo wanaagga aad badiso, oo qiyaamuleylka aad u istaagto, oo soonka aad soonto, oo taacada alle aad ku dadaasho, farxad iyo raynrayn baad kala kulmi doontaa meesha kaa horaysa. saasay dhihi jirtay, cibaadaday ku noqon jirtay ilaa ay ka waabariisato. ilaahay ha ka raalli noqdee. mucaada waxay ahayd mid tukataa maalin walba iyo habeenkii marka laysku daro 600 oo rakacadood. waxay akhrin jirtay juska ay rabta habeenka inay ku tukato oo ay ku istaagto iyo maalintii akhrin jirtay. ilaahay ha ka raalli noqdee. waxay ahayd mid tiraahda, waxaa yaab leh oo aan la yaabanahay il hurdaysa ayadoo og hurdo dheer inay ku geli doonto mugdiga qubuuraha. radia allahu tacaala canha. sanadii 62 ee hijrada ayaa zawjkeedii si lata uu ku shahiiday. waxa uu ku shahiiday iyo wiil ayadu ay dhashay xuruubtay muslimiintu galayeen qayb markaa ka mid ah. mar allaala markii khabarkii soo gaaray, ninkaagii baa dhintay, wiilkaagii baa dhintay la yiri, way sabartay, way istirjaacato, way inaa lilaahiyeysatay. dumarkiibaa u yimid, agteedii ku soo dhoobmeen. waxay rabeen inay u soo tacsiyeeyaan. waxay ku tiri, marxaban bikunna, war soo dhowaada haddii aad tihiin kuwa iigu yimid inay ii tahniyeeyaan. subxaana allah. soo dhowaada haddii aad tihiin kuwa iigu yimid inay ii hambalyeeyaan. allahu akbar. soo dhowaada dumarkaanow haddii aad tihiin kuwa iigu yimid inay tahniyad isiiyaan. haddiise aad tihiin kuwa iigu yimid arrintaa waxaan ahayn, farjicna, laabtay tiri, iska noqda, uma baahni arrintaa arrin aan ahayn. ii tahniyeeya, ii hambalyeeya, ii duceeya. xaaladdaa haddaad iigu timideense wax kale oo arrintaa aan ahayn, oohin iyo baroorasho, qalbi jebin iyo mtaqaanaa tiiraayo samayn, waxyaabo kale oo adduunka ku tacalluqdana, farjicna, haddeertaanba noqda, haddeertaanna laabta. sidii ay ku guursatay sila ninka lagu magacaabo wuxuu ahaa baa layidhi ina adeerkeed. waya silata bin ashyama wa ibnatu camni, waa ina adeer mtaqaanaa wuxuu ahaa ina adeerkeed. waxay ahayd baa la yidhi qisada ama sababtii guurkooda, bacdamaa cibaadadeedu ay aad iyo aad u badnayd gabadha, khayrka iyo wanaagay samayn jirtayna ay aad iyo aad u fara badnaa. asagiina saasoo kale uu markaa ahaa ayuu doortay Mucaada. nafsadeeda ayuu ka dalbaday in ay isguursadaan ama uu guursado. weliba aad iyo aad baa loogu tirtirsiiyeye nin guurka u soo jeeda asaga laftigii ma ahayn. wuu doontay ibnata camidiisii Mucaadata, naftiisuu u doontay.
mar allaala markii la gaaray maalintii la gurigeyn lahaa wiil ibnu akh oy ay ahaayeen walaalkii wiil uu dhalay ayaa arrintiisii u istaagay wuu kaxeeyey oo sila waxaa la geeyey meesha xamaamkee biyo kululaysiga lagu magacaabo meeshii ayaa lagu soo hagaajiyey ninka lagu magacaabo silla mar allaala markii la gaaray gurigeyntii oo la soo gelbiyey Mucaada gurigiina la keenay asagiina uu soo galay waa istaagay taabicigii wuxuuna u istaagay inuu 2 rakacadood oo sunno ah uu markaa tukado waa dad aroos ah waa dad gurigoodu sharxan yahay waa dad gurigoodii laga dhigay guri intaqaanaa cajiib badan waa la istaagay salaad baa la galay waa la sunaysanaya inantiibaa aragtay waa Mucaade way istaagtay ayadoo ku dayanaysa salaadiisa way la xiratay waa habeenkii caruuska oo wax lala yaabo oo xaggeena laga la'yahay gabadha maanta la gelbiyo ee taajka xun ugu jira oo guriga qabdarada ah oo caawo dhan muusig la garaacayay oo la soo gelbiyey oo gabadha malxiisada markaad aragto say u labisan tahay iyo qaabka imtixaanaa jirkeeda ay ka soo dhigtay shaytaanka dhabanka haysta wuu yaaban yahay shaytaankii ayaa yaabana wuxuu leeyahay wardulkan kaa daran maxaa waaye xaaladooda mar allaala markuu ninka soo galo iska daa in salaad la tukado iska daa in waxyaabo kaloo khayr la tilmaamee intay istaagtay shiyeerkeeda furaysana Mucaada way istaagtay ninkeedii salaada xirtay ayay dhinac istaagtay ama gadaashiis intay istaagtay iyo salaadiisii ku dayatay waa la tukanayay wax kasta oo qiraa'o ah oo quraan la aqrinayay macaansanayeen guurkii baa la hilmaamay xaqii la isku lahaa baa la iloobay jiifkii la jiifan lahaa baa la hilmaamay salaadii ayaa lagu jiray ilaa waagu baryay walaalayaal gabadhaasay ahayd Mucaada aan rabna in taariikhdeeda aan ka sheekayno adduunka dumar baa soo maray aad iyo aad u qiimo badnaa dumar ayaa soo maray aad iyo aad adduunka cibaadadii khayr ugu camiray dumar ayaa soo maray xaaladoodu saa ahayd ku dayashay mudan yihiin inay ummadda ogaadaan bay mudan yihiin waa tacbaan maanta 5 maalmood ka hor baa xina loo bilaabay cilaansaar loo bilaabay marba gacanta kor u haysa marba lugta kor u haysa habeenka aroosku dhacayo dhibaatada lagu samaynayo ayadoo tacbaana gabadha maanta la guursanayo masaakiinta guriga tegaysa saasay u kala dhacaysa salaad ma jirto cibaado ma jirto baryo alle ma jiro khayr sameyn ma jirto Mucaada fiiriya walaalayaal salaad baa loo istaagay waa habeenkii ninkii malxiiska ahaa baa yimid hadal cajiib badan ayuu markaa yiri saa darteed waa inaan ku dayanaa dadka wanaagsan waa inaan ku dayanaa khayrkii wanaagga ay markaa samaynayeen waa inaan ogaanaa diinta ku socoshadeedu qiimo iyo wanaag fara badan inay leedahay walaalayaal saa darteed waxay waa bariisatay ama waxay noqotay adduunka 70 sano ayay ku gaartay gabadha Mucaada ilaahay ha ka raali noqdee waxaa la yiri waxay ahayd maalin walba mid u diyaar garowda meydka geerida mid u diyaar garaysan bay ahayd waxay aad iyo aad u ta'amuli jirtay mar uun in rabbi uu la kulmin doono zawjkeeda iyo canugeeda naxariista alle ama jannada alle dhexdeeda waxaa laga wariyey mar allaala markii geeridii ku soo xaadirtay Mucaada inay ooysay cabbaar markay ooynaysay ay haddana qosashay waxaa loo yidhi maxaa kaa ooyiyey Mucaadey maxaase kaa qosliyey fa mima albukaa wa mima aldaxik qosolku muxuu ahaa oohintuna maxay ahayd waxay tiri oohintii aad aragteen oo aan ooyey waxaan soo xasuustay inaan faaruqaayo oo aan ka tegayo soonkii badnaa salaadaan tukan jiray dikrigii ilaahay amaa oohinta taasay markaa ahayd maxaa soo haray tabasumakaygii dhoola caddayskaygii iyo qosolkaygii waxaan fiiriyey oo aan eegay ninkaygii
ayaa horteeda aan dhigay macnaha soo qaabilay oo aan ku qaabilayo sixnadaar macnaha guriga daaradiisa laba xulladood oo cagaaranna qaba oo sita kooxna ku dhex jira wallaahi maa ra'aytu lahum fi ddunyaa shabahan kuma aanan arag bay tiri adduunka wax la mid ah waan qoslay bay tiri oo qosolkeygii aad aragteen kaasoo markaa ah u malayn maayo aragtida aan arkay wixii ka dambeeya inaan farad gaari doono inaan shay farad ah aan markaa gaari doono cibaado waajib ah samaynteeda way dhimatay intii aysan gelin ama aysan gaarin wakhti salaadeed rabbi subxaanahu wa tacaala khayr fara badan ha siiyo rabbi subxaanahu wa tacaala qabrigeeda ha u ifiyo rabbi subxaanahu wa tacaala qabrigeeda ha u waasiciyo wanaag fara badanna tii gaarta ilaahay ha ka dhigo mucaada waxay mudan tahay ku dayasho waxay mudan tahay inaan ku dayano waxay mudan tahay wixii ay samaysay inaan samayno si ilaahay subxaanahu wa tacaala abaalgudkaa wanaagsan ee la siiyey ama ay rajaynayso annaguna aan u rajaynayno oo kale inaan markaa gaarno allah xaqa hana waafajiyo ciyaarta aan iska dayno malaayacniga aan ku jirno aan iska dhaafno waa qof dumar ah gabdhoy ku dayda oo saasoo kale sameeya si ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa aan u haleelno wabilaahi tawfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam